وأو رسولك عليه الصلاة والسلام ساعة قيام كعي ميسو لا فربتان فتنكو سيقارا يوصي شاق رسولك ويكثر الهرج أو هرجك فربتو قالوا وما الهرج يا رسول الله وحيكو يرادين أصحابته هرجك وامحي قال القتل برسولك عليه الصلاة والسلام ودلك يا رسولك عليه الصلاة والسلام هذه ومن كمدة علامات كتوسيا الدنكا إنه مركز وحويا رنتي متجبجباياي عباد الله إن هذه الجرائم وممارستها دليل على الحرمان ودليل على ضعف الإيمان والتقوى واتباع الشهوة ولا الشهوات وهؤلاء في طريق الشيطان وشبهاته ولا ليال دنبيلة آتك هو وين الدلك دعيا وحي دليل التاي ددك وحا سمينيا إني خير لا وياليهين وحي دليل التاي ددك سنو إيمانكودي ضعيفي عبسنا آني كترين وحي دليل التاي ددك إني وضد الشيطان كقادين بل لقيس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحو رسول كيري إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول وحو رسول كشاقي وأقول مركب بريو مالين كستا شيطان كعيدا مدي سايو فديا بن آدم كايو كسو فدينيا وحنا كورن يا من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج إليها وكليها أمريا ما أنت قفك صلمي يقف مسلمة تشبه حريا دبدا ترى رسولك فيخرج هذا فيقول مدبا بحي ومكاسوح ورنيا لم أزل به حتى طلق امراته كمان سول إلا وحاسكي سيان كفر يسان قوذي مركاسو شيطانك ورنيا كي قوينا وعرفيت كي ويناه أوشك أن يتزوج ويجي هذا waxa iska dhow oo dhici karta inuu guursado markaasi waxa weeye taasi waa mid laga bixi kara hadduu xaaskiisa furo mid kale imanaya markaas oranaya kama suulin hatta aqqa waliday ila labadiisi waalid aaq ku noqday oo caasiyay markaas oranaya waxa iska dhow inuu baarinimo sameeyo mar dhow baarinimo sameeyo hadduu mar caasiyay mid kale imanaya markaas oranaya lam azal bi hatta ashraka kama suulin illa oo shirki sameeyay oo allahi abuuray wax la wadaajiyay markaas oranaya anta isagoo markaas waxa weeye amaanayo ole adigu ficil wanaagsan oo weyn baad soo samaysay mid kale imanaya markaas oranaya lam azal bi hatta qatal kama suulin illa ugu dambayntii uu wax dilay markaas anta wayalbisu taaj markaas taashki uu xidhaya kaas oranaya adigu amalkii ugu weynaa baad samaysay adiga ayaa mutaystay maanta in taaj lagu saaro taaj lagu xidho ayuha almuslimuuna cibaadallah xadiiska waxaan ka qaadanaynaa dadka acmaashan oo kale samaynaya inay tahay acmaal shaytaaniya عمل شيطانك وكفر حي الرالي كياي أي مركز وحوية رنتي كفر حسين شيخ الألباني رحمه الله حديثك والصحيحي أبي هريرة وحلي رضي الله عنه قال رسول الله رسولك إلهي وحويري لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فيقضي كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار رواه إمام البخاري وعي رسولك عليه الصلاة والسلام وحي الدنيا دمان ميسو تيجي ميسو إلا أوي ما دمان إن أيت ما دمان تاسو كي وحد دلي أنا قرنين وحد دلي كي لا دلينا وحد دلي أنا قرنين مركز سيران سيكو عيسى سداس قال الهرج مركز رسولك عليه الصلاة والسلام دلك معنى وحوقات جدا رسولك عليه الصلاة والسلام تا دلك أيها فربضان أيها فراها كبحيا
markaasuu yidhi alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar ka wax dilay iyo ka la dilay labaduba naartay gelayaan baa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii kale saxiixa ku sugnaa waa ti rasuulku laha calayhi salaatu wasalaam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar haddii labada muslim ama labada qofoo muslimkaah ay seeftii iyo hubkii iskala hor yimaadaan ka wax dilay iyo ka la dilay labaduba naartay gelayaan markaasay asxaabtu rasuulka ku yidhaahdeen yaa rasuula allah haadaa qaatil qaatilka wax dilay waa garanay famaa baalu lmaqtuul maqtuulka la dilay arrinkiisu waa maxay isaga muxuu naarta ku galay qaala inahu kaana xariisan calaa qatli akhiih aw calaa qatli saaxibii kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu rasuulku wuxuu isba ku dadaalayey inuu saaxiibkii dilo dee waa lagaga horreeye abu hurayra mar kale rasuulka wuxuu ka soo wariyey salى اllahu عalayhi wasalam inuu rasuulku yidhi laa taquumu الsaacatu xataa yuqbada alcilm وتكثر الزلاسل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج ورسولك عليه الصلاة والسلام ساعة قيام اشتاقي ميسو إلا علمك اللي قبته علمك مركز وحوية سيد الله قبنا إيانا شذ رسولك الشيقي عليه الصلاة والسلام تذكي علمك لهذا إلهي وأفسنا إياه saacadda qiyaame kici mayso ilaa ay farabataan dhulgariiradu wayataqaaraba zamaan waktigii uu yaraado oo isku soo dhowaado sida axaadiista kale ay caddaysay oo bishii usbuuc la moodo usbuucina maalin markaa waxa weeyaan la moodo fitanku ay saacadda qiyaame kici mayso ilaa fitanku ay soo daahiraan wayakthura alharju baa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam uu dilku u farabato أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أيها المسلمون عباد الله روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج أبو موسى الأشعري وحوليه رضي الله عنه رسولك إلهي وحنوغا ورمي ساعده هرتيد إنو دعي الدل وضدك مسلمين تيستليان لا ترى رسولك ويدين وحيا وما الهرج قال الكذب والقتل برسولك عليه الصلاة والسلام هرجك وحا لوغا جيدا دلك إيا بينتا مركز رسولك عليه الصلاة والسلام أي رهدين رسولك إله يو وحا وقبضنا ما أنت وحا ويا وحا لقدر تاسوي مركز يري إنه ليس بقتلكم الكفار maaha waxa weeyaan laynta aad kufaarta laynaysaan maaha walaakinahu qatl bacdikum bacda waxaa looga jeedaa barhkiinba barhka kale ayuu laynayaa xataa yaqtula rajulu jaarah ilaa marka dambe ninkuu jaarkiisa uu dilo wayaqtula akhaah walaalkii uu dilo wayaqtula cammah adeerkii uu dilo wayaqtula bna cammih inankii walaalkii uu adeerkii dhalayna adeerkii uu dilo qaaluu subxaana allah markaasay yidhahdeen asxaabtu maa macanaa wamaa macanaa cuquulunaa su-aal bay weydiin waxay maanta midha caqli ma jiro markuu qofku dadkii cidda ugu dhoweydu laynayo wamaa macanaa cuquulunaa midha cuquuli maalintaayo waxgarad ma jiro daata rasuulku wuxuu yidhi qaala laa ilaa inahu yanzicu cuquulu ahli dalika الzamaan waqtigaas dadka caqligii baa laga siibaya xataa yaxsiba axadukum anahu calىa shay walaysa calىa shay
ilaa qof uu malayo inuu wax yahay isagoon waxba ahayn. bilaahi calaykum, miyaynan odhan karin maanta dadkaasi waxay samaynayaan cuquushii baa laga siibay? miyaana intaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa la wada garanaya, waa isgaranaynaa intay isu jiraan dadkaa maanta sidaa isu laynaya birta iska aslaya. miyaynan odhan karin runtii cuquushii baa dadkii laga siibay? iyada iyo xawaadista la midka ee dhacaysay een halka kaga hadlaynay miyaanay noqon karin mid aynu ku macnayn karro dadka markaasi waxa weeyaan runtii cuquushii baa laga siibay. xadiiska imaam axmed ee musnadkiisa ku soo wariya sheekhulalbanina waa saxiixiyey. abu hurayra radia allahu canhu rasuulka waxa uu ka soo wariyey inuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam weylu lilcarab min sharin qad iqtarab. hoog iyo halaag ayaa carab u sugnaaday taasoo sababteedu ay tahay shar soo dhowaaday. intaa markuu sheegay rasuulku ayuu waxa uu yidhi qad aflaxa man kafa yadah. hoogga iyo halaagaasi markuu yimaado waxa liibaanay qofka gacantiisa laabta ay kafa yadahu can iladaa, gacantiisa dhibka ka laabto oo dhib geysan. oo taraka alqitaala, waxa liibaanay maanta ka dagaalka ka taga. mar hadduu yahay dagaalkii mid xaq darro ah oo markaasi waxa weeyaan baatila. xadiiskana abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey. ayuha almuslimuun laqad akada الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam xurmata safki dimaaءi اlmuslimiin fii khudbatihi اlmashhuura akbaru اجtimaacin. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu adkeeyey xurmada ay leedahay qofka muslimkaa dhiiggiisa oo la daadiyaa. waxa uu baraarujiyey kulankii ugu weynaa islaamku kulmaan, kulankii ugu dambeeyey ugu weynaa ee nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa uu la kulmo. waad garanaysaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaas siduu u adkayo markuu la dardaarmayey wuxuu atuu ku lahaa ina dimaa'akum waamwaalakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada ilaa yowmi talqawna rabbakum. allaahuma hal ballaqtu. wuxuu rasuulku laha calayhi salaatu wasalaam dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinna iyo sharaftiinnu xaaraan buu barhka kaleba ka yahay, barhkiinba barhka kale xaaraan buu ka yahay. sida bishaa maalintaa la joogay xurmo u leedahay, sida beledulxaraam uu xurmada u leeyahay, sida maalintaas ay xurmo u lahayd. bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam kacbada ilaahay isagoo tawaafaya ayuu kacbada rasuulku la hadlayey calayhi salaatu wasalaam oo ku lahaa kacboy waxaa tahay mid waxa weeyaan amaakinta iyo buqcadaha dhulka ku yaalla kuwa ugu xurmada badan, laakiinse dhiigga qofka muslimkaa ayaa kaa xurmo badan buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ayuha almuslimuuna cibaad allah, walaalayaal waxaan runtii waxa weeyaan maanta lagu dagaalamayo oo runtii waxa weeyaan qabyaaladda ah oo ah khitaalu lfitna, dadka maanta galay berita un bay ka murugoon doonaan. waa wax murugeedeeda berita ay soo baxayso. sidaa awgeed ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay xadiiska muslim soo wariyey man qutila taxta raayatin cimiya yadcuu casabiya aw yansuru casabiya faqitlatuhu jaahiliya. aada ugu fiirsada baaraka allahu fiikum. wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka la dilo isagoo ku hoos jira raaya cimiya, yani laa yastabiinu amruhaa, calan iyo raayo taasoo arrinkeedu aanu xaq ahayn, isagoo ku baaqaya qabyaalad ama qabyaalad u hiilinaya, kaasi dhimashadiisu waxay la mid tahay baa rasuulkii calayhi salaatu wasalaam
jaahiliyadii say u dhiman jireen bay la mid tahay qaabkaasoo kale qof u dhintay bay la mid tahay